wafdi heer sare oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta si heer sare loogu soo dhaweeyay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. wafdiga madaxweynaha oo ka soo kicitmay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soor ayaa soo gaaray magaalada Caynaba abaar 2 duhurnimo ee maanta, iyadoo ay kaga hortageen tuulada Gumaysa gobolka Sool mas'uuliyiinta heer gobol iyo mid degmo, cuqaal xildhibaanada labada gole, salaadiin iyo dadweyne aad u tiro badan oo ruuxaya calanka dalka iyo caleemo qoyan. wafdiga madaxweynaha intii ay marayeen deegaamada Og iyo Ceeldhaab waxaa dadweynaha deegaamadaasi ay si isku mid ah ugu soo dhaweeyeen farxad iyo damaashaad. madaxweynaha markii uu soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxa uu 1 kiiloomitir dhex lugeynayay jidadka magaalada Caynaba isagoo gacan qaadayay kumanaan dadweyne ah oo taagnaa soo dhaweyntiisa. ugu dambeyntiina waxaa wafdiga madaxweynaha oo ay socdaalkiisa ku wehelinayeen marwada koowaad ee dalka Aamina Sheekh Maxamed Jirde, gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdi Xasiis Maxamed Soomaali, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Nuur Carraale Door, wasiirka warfaafinta Axmed Cabdi Xaabsade, wasiirka xanaanada xoolaha Dr. Cabdi Daahir Cali, wasiirka waxbarashada Samsam Cabdi Aadan iyo waliba mas'uuliyiin kale oo tiro badan ayaa loo galbiyay xarunta gobolka Saraar ee Caynaba halkaas oo ay diyaar ugu ahaayeen dadweyne aad u tiro badan oo kor u dhaafiyay 100 qof oo iyaga laftoodu si xushmad kalgacal iyo waayo-aragnimo leh u soo dhaweeyay madaxweynaha. afagaarihii loogu talagalay inay wafdiga madaxweynuhu uga khudbadeeyaan dadweynaha oo ahayd xarunta khayriyada ayaa ugu horeynba waxaa wafdiga madaxweynaha la hadlay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Muuse oo mahadnaq iyo soo dhaweyn u muujiyay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa. kadibna waxa uu ka soo sheekeeyay taariikhda magaalada Caynaba ay kaga jirto dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. Suldaan Cabdiraxmaan Qodax Jaamac oo isna madasha hadallo dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyay ayaa xukuumadda u garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Silaanyo uga mahadnaqay isbedelka ay dalka ka samaysay muddadii ay xilka haysay. abarasaabka gobolka Saraar Ibraahim Xaaji Xasan Cali oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeynba ka dhawaajiyay inuu gobolkan yahay mid ku talaabsatay horumar ballaaran isla markaana dadka deegaankan yihiin qaar isku tiirsan. kale ee hore u dhisnaa aanu barbar taaganahay waxyaabo badan inoo qabsoomeen aanaanu jecelnahay iyadoo duufkii ku ahayd waqtigu ku adag yahay inaan xabsiga gobolka oo hadda dhammaystir taagan iyo xafiiskii oo isaguna meel xamanaya nala yaataan annaga dhammaystirayna waxba kama rabno xukuumadda wax culaysteeda ka saari mayno. waxaa runtii iyagana qabsamoogu qabsoomaya isbitaalkii xarunta gobolka oo hadda shaqeeya oo dhismayaal wasaaradda ku kordhinayso iyo dhismayaal kale oo gurbajoogu ay noogu talagalaan aanu bisha soo socota gacanta taari doono haddaan laga dhigo. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdi Xasiis Maxamed Soomaali ayaa isna mahadnaq aad u ballaaran u soo jeediyay shacabka reer Caynaba oo ku aadan soo dhaweyn la yaab leh oo reer Caynaba ku qaabileen wafdiga madaxweynaha qaranka. Caynaba waxaan ugu salaaminaa salaanta islaamka waxaan aad maahantii maanta ugu faraxsanahay munaasabadan qiimaha leh gurigan qiimaha leh ee sanayaal kale u qurxiseen oo nisri malaha gobolka Saraar caasimadiisa Caynaba way ka qaaday Hargeysa buuxiyo goboladii kale waaweynaada. ugu dambeyntiina madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa dadweynaha reer Caynaba uga mahadnaqay sida weyn ay u soo dhaweeyeen isla markaana sheegay inay ka soo laabteen jiidda hore ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. marka walaalayaal sida aad noo soo dhaweyseen aad baan ka mahadnaqaynaa. waxaan leenahay waxyaabo badan baa halka madaxda iyo mas-uuliyiintiina ay ka sheegeen. waan ognahay in gobolku u baahan yahay baahiyo badan uu qabo oo dhinac walbale inuu qabo waan ognahay. waxaan se intii aanu soo maraynay aanu ogsoonnahay in gobollada dalka oo dhammi muddadii yarada uu dalka aanu haynay ee sanadka ahayd sanadka ku dhoweyd waxaan isleenahay ilaahay mahaddii waxyaabo badan baa qabateen, tallaabooyin badan baa qaadteen, iskuulladii baa fidhiseen, inay ka dhigteen muxuu ahay tacliintii baanu ka dhignay balaalca ka dhignay, ciidamadii baanu kordhinay, shaqaalii baanu mushaarka u kordhinay. muddadaa gaabanaanu xilkaynay inaanu baahiyaha dalka iyo gobollada loo baahanyay si kastaan u jecelahay inaanu wada kafaalo qaadno waanu samaynay noomay suurtagelin. laakiin waxaad ku talagelaysaan inay naga tahay go'aan ay naga tahay inaanu meel walba gobollada dalka oo dhan wixii ka suurtooba annaga iyo shacbiga iyo gacanta isqabsanayna
ilaahayna la kaashana si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu soo gaadho magaalada caynaba tan iyo xilligii uu dalka la wareegay iyadoona ay wafdiga madaxweynuhu u ambabaxeen caasimadda somalilan ee hargeysa maxamed aadan dirir telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada caynaba ee xarunta gobolka Saraar.